إنا لله وإنا إليه راجعون. halkan waxaan tacsi tiiraanya la uga dirayaa dhammaan ummadii gobolka Sanaag iyo Sool shaqaaqada xun ku dhaxdhacday intii dhimatay inuu Ilaahay u naxariisto inta dhaawacana inuu Ilaahay booga dhayo sida ugu dhaqsiya badan waxaan ka codsanayaa dhalinyarada iyo waxgaradka gobolka Sanaag dagaal wiil baa ku dhashay wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho inay arintan foosha xun bisha Ramadaan awgeed soo gabagabeeyaan oo wixii wax garada ay ummadda muslimiinta ay meesha isku gumaadaya ay dhex galaan waxa meesha hawl weyn ay ka soo gaadhay hooyooyin iyo caruur Soomaaliyeed waxa ku wiil waayay aaba Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa gobolka Sanaag iyo Sool inay sida dhaqsiya badan wixii wax garada ee jooga inay hawshaas u dhex galaan waxaan ugu baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay hawshaas oo afjaraan ay hawshaas u daba dheeraatay waa wiil iyo abtigii waa in hawshaas sida ugu degdegsiinaya badan bisha Ramadaan awgeed fadligeeda in ay ku soo afjaraan waxaan dawladda federaalka ka codsanayaa sida uga dhaqsiya badan inay soo dadka Soomaalida ah ee meesha xumaanta weyn ku dhex taalo bisha Ramadaan inay si dhaqsa oo degdeg ay u dhex gasho oo ay ka taliso wanaageeda dawladda Soomaaliya waxay jeceshahay inay Soomaaliya isu soo jiido inay Soomaaliya ka dhigto mid oo ay tahay Soomaaliya dad walaalo ah oo hal mowqif oo hal wadan wada leh waxaan ka codsanayaa inay wax garad si degdeg ah dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu dirto waxa kale aan wax garadka gobolka Sanaag iyo Sool u sheegaya inay dawladda federaalka ay mar walba ay jeceshahay Soomaaliya inay hormarto ay la safan Soomaaliya qayb inay la safan dawladda Soomaaliya waxay jeceshahay Soomaaliya inay mid noqoto mar walba waxay jeceshahay wanaaga Soomaaliya inay ka taliso laakiin dhinaca ma jarjeedo dawladda Soomaaliya